af urka wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka dadka qaar ay ku arkaan afkooda, wuxuuna kugu keeni karaa inaad ka fogaatid bulshada iyo saaxiibadaadaba adigoo ka cabsanaya in afkaada uu kusoo shiiro. sidoo kale waxaa dhici karto adigoo ku dadaalaya nadaafadda afkaaga iyo ilkahaagaba inuu marmarka qaar uu afkaada soo shiiro. muuqaalkan ayaan kugu sharxayaa waxyaabaha sababa af urka, qaabkaad uga hortagi lahayd iyo sida ugu fudud ee aad ku daweyn lahayd. ee soo dhawo oo ila lameyso muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhiciisa ku soo aragtayba, muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku sharxo af urka ama waxa afka qalaad lagu dhaho bad breathing oo ah in ay neeftaada soo urto. sidoo kale af urka waxaa loo yaqaanaa halitosis. marka hore waa maxay af urka? af urka waxaa lagu qeexi karaa qofka inuu afkiisa iyo neeftiisa ay soo urto. marka wuxuu kugu keeni karaa ama wuxuu kugu sababi karaa inaad ka fogaatid saaxiibadaada adigoo ka cabsanayo in neeftaada ku soo urto. marka af urka waxyaabo badan ayaa sababo. marka waxaa isla arki doonaa maxaa sababa af urka ama maxaa keeno wax loo yaqaano halitosis-ka. waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah number 1 nadaafad darro afka ah. inteena badan afkeena waan cadeysanaa, balse waxaa laga yaabaa dadka qaar inay afkooda cadeysanin muddo badan ama qaabkii uu cadeysanayay inuu qaldan yahay. marka dadkaas waxaa laga yaabaa in afkooda uu soo uro. marka waxa ugu badan ee keena af urka waa qofka nadaafadda afkiisa in ay xumaato. muuqaalka qaybtiisa dambe ayaan kugu sharxi doonaa qaabka ugu fudud ee aad ku hagaajin kartid nadaafadda afkaaga iyo waxa laga rabo. sidoo kale waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah number 2 caabuq inuu ku yimaado quumanka. caabuq markuu ku yimaado quumanka waxaa loo yaqaanaa tonsillitis. tonsillitis-ka ama caabuq ku dhaco quumanka qaabka u keenayo af urka ayaa ah cunto markaad cuntid waxaa laga yaabaa inuu afkaaga ku haro haraag ka mid ah cuntadaas. marka haraagaas cuntadaasi waxaa laga yaabaa inay ku haraan afkaaga iyo dhuuntaadaba. marka caabuq ku dhaco quumanka inta badan waxaa keena bacteria. bacteriadaasi waxay ka faa'iideysanaysaa cuntadaasi ayuu quudanaysaa. marka bacteriadaasi waxay soo daynaysaa wasakh. wasakhdaasi ayaa kugu keeni karto af urka. sidoo kale waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah af qaleylka ama wax loo yaqaano dry mouth. af qaleylka qaabku u keeni karo af urka ayaa ah sida caadiga afkeena waxaa qoyo saliva oo ah candhuufta. marka candhuufta waxay qayb weyn ka qaadataa inay afkeena noqdo mid qoyan. sidoo kale waxay ka hortagtaa af urka. marka qofka haddii candhuufta ay ku yaraato waxay kugu keeni kartaa af qaleyl ama dry mouth. dry mouth-kan wuxuu keeni karaa af urka. sidoo kale waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah sigaarka iyo tubaakada. sidoo kale waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah dawooyinka qaar. dawooyinka inta u badan ee keena af urka waa dawooyinka loo yaqaano antihistamine drugs oo ah dawooyinka loo isticmaalo xasaasiyadda iyo sanboorka sida dawada loo yaqaano loratadine. sidoo kale waxyaabaha keeni kara af urka waxaa ka mid ah cudurrada qaar ama xanuunada qaar. tusaale ahaan xanuunka loo yaqaano kansarka iyo xanuunka loo yaqaano gastroesophageal reflux disease oo ah xanuunka gaaska nooca loo yaqaano laabjeexa. marka labadaas cudur ayaa inta badan keeno wax loo yaqaano af urka. sidoo kale cuntooyinka qaarna way keeni karaan af urka sida basasha iyo toonta. waxaan gudbi doonaa qaybta xigta oo ah sidee loo daaweeyaa wax loo yaqaano halitosis-ka ama af urka sidee loo daaweeyaa. qaabka loo daaweeyo af urka mar walba waxay ku xiran tahay waxyaabaha sababo. tusaale ahaan waxyaabaha sababa af urka waxaan dhahnay waa nadaafad darrada. marka koowaad si aad u daweysid waa inaad iska hagaajisid nadaafadda afkaaga oo aad cadeysatid maalin walbo 2 jeer ilaa 3 jeer. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa dunta lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda oo loo yaqaano flossing. sidoo kale si aad u hagaajisid nadaafadda afkaaga waxaad isticmaali kartaa dawada lagu luqluqdo oo loo yaqaano mouthwashes. dawada mouthwashes-ka waxay ka caawinaysaa in ay nadiifiso haraaga cuntada ku haray carabka iyo ilkaha dhexdooda. si hore soo sheegnay waxyaabaha kale ee keeni kara af urka waxaa ka mid ahay tonsillitis-ka oo ah caabuq inuu ku dhaco quumanka. marka haddii uu caabuq ku dhaco quumanka uu keenay af urka waa in quumanka gabi ahaanba meesha laga saara. waa haddii la daweey waayo. balse hadduu caabuq ku dhaco quumanka uu yahay mid sahlan waxaa la isticmaali karaa dawooyinka qalajiyaasha ah ee loo yaqaano antibiotics-ka
sida dawada loo yaqaan amoxicillin iyo amoxiclavin. balse mar walba waxaa haboon inaad u tagtid dhakhtar ilkood soo kugu soo qoro dawooyinka kugu haboon. sidoo kale qaabka loo daaweeyo af urka waa inaad nadiifisid carabkaaga. sida caadiga ah carabkeena wuxuu leeyahay duleelo yaryar ay galaan bakteeriyada. marka waxaa dhici karto qofka markuu afkiisa nadiifinayo inuu ilkiisa kaliya cadeysto uu ka tago carabka. marka waa muhiim inaad nadiifisid carabkaaga sababtoo ah 70% af urka waxaa ka hortagi karo inaad nadiifisid carabkaaga. carabkaagan waxaa ku nadiifi kartaa burushka ilkaha ku cadeysatid. sidoo kale waxaa ku daweey kartaa inaad ka fogaatid wax walba oo kugu keenayo af urka. tusaale ahaan inaad ka fogaatid dawooyinka aan soo sheegnay ee loo yaqaan antihistamine drugs iyo sidoo kale inaad ka fogaatid cuntooyinka keeni kara af urka sida basasha iyo toonta. sidoo kale waa inaad ka fogaatid mukhaadaraadka keena af urka. tusaale ahaan sigaarka iyo tubaakada inaad ka fogaatid. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlayo wax loo yaqaan halitoosiska ama af urka. haddii aad su'aalaha qabtid qaybta hoose ee faallada ay igula wadaag waxaan isku dayi doonaa inaan kasoo jawaabo dhammaan su'aalaha. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan waxaan ku rajeynayaa khayr iyo caafimaad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.